السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدرت ربي يتود أيام ماشى كو أكيدي وقت جود إلهي وقت كدري إن قف والباء هري أيو إلهي إنه عدي قف والباء مالين تيري ساعد إن ساعدنا نقدر ساعدنا أن نجسوا هرمرينين ويلكن فرحان يرجع كلو الجريبة أنت نقدر متيبة وشهداء دبأ وايا وقت جود إلهي وقري أيام ماشى كو أكاي أسباب تسد دونتا هو أكاتو لكن ساعداس إن أنا دافع لهين أو تودي أي ماشى كو أكيد أي حقيقة أنا قلنا محو هاي قضاها ربي أيام كو قنعسنا هاي ومحن كور هذا أن آمن سنة ودعينا إن إلهي محن كور هذا وسمري إيمان أهلدي يا قرابتي يا أصحابتي يا دمانتي وأمد الصومالية ملك السوء يجوكتو لأن يرى جنن دجال كان ما كان يقول جراه الدور وكتجنا إيماش وقول جري لو هذا قرنا يوها نما كان وحي هذا صوت المامي مينو ومحاولنا فسر مين عدو واي عدو أمد الصومالية واي عدو دل كان واي عدو ضد كان واي عدو ضد كان دينتي سواي دينتي عدو كويهين ضد ماذا عدو كويهين دلك عدو كويهين ضد كجريتان كيسة أي عدو كويهين انتاس عدو نيكا أبريري مركا إن أو كهرتاغو أو نفتيس أبي ما إلان دقال داد آدو إنا تصور منيسي إنا تصور نغنيسي لبدبا واسور تقال لكن إنا تصور منيسي دقال داد آدو وكتالقشي مركا نيكا دادك كودير هذا ومانو والبتاغن وهذا وقدام بيويلكين محوها فرحان هون جناسيس كدو كنين ودقي محان كوير هذا نبضونك هاي اللي يقين علمي هجر oo muxuu ammaan dhaweeto oo muxuu ahay oo ku dhinta soo qorsito oo dagaalamayo nimanka la dagaalamayo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabta taas waay ayaga shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummadan ay badbaadiyaan oo dalkan ummadan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa karaamadiisa jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan وكواسا كوا محاكو هذاي شهادة دبتها وحنو باهنا مانتا صوماليا يا أمد الصوماليا دان هايبو يا عدو إنا نسوي دينان وباهنا مانتا وايو عدوغا أي لا ذا أمدان إنا نسوي دينان وباهنا صوماليا مانتا يا عدو كوا دولة لماذا يا عدو كوا dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ahoo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ahoo diidan oo masaajidda ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaanku iraahdaay muxuu ahaay qadaha rabbi oo keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kale Soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ah oo raba inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyaa ka hortaagan cadow kale may ummadaan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunug oo isla dhalato dugsi quraan u socota nimanka dilay waa maalin dhaweeto on the record sawiradoodii alla haya meedkoodii alla haya afar wiil oo yar yar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay ordamaanday maxaa dugsi quraanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankan waa cadow dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kale walaalayaal waa dhunsantiin ilaahay ay soo hanuuniyaan leena ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waa meel dhaxo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo ama shabaabaa tahay
ama kan shabaab la dirir ayaa tahay meel dhexoo la istaaga kuma jirto shabaab qora qaado kula dirir maxaan ku irahdaa dhagax waxaad kula diriri karto gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin ka leexo afka dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafu liimaantii ay daba socotaa taasi xumaan waay qof bini aadan ah dad qofkii dila qof dunida oo dhan asoo dilay ayuu la mid yahay qofkii qof nooleeyana ummadda oo dhan asoo nooleeyay la mid tahay intiiaan ku haysanaa marka nimankaan bal eeg wax kale iska daa dadkiina waa dilayaan qof ma dilayaana tarabtarabay u dilayaan naftiina in la badbaadiyey diidan yihiin dilka ka sokow xabad kuma diloohayaan qarax kaliya kuma diloohayaan baahiyay ku diloohayaan dadkii majaaca inay dadka ka dhex kacday ku diloohayaan laanna raashin la wado oo aan muraad kale loo wadin oo nin jeebkiisa inta ka bixi baaso uu ku bixiyo ka soo gado yiri walaalaha dhibaataysan oo duruufaysan hal gaarsiyo u jidka u taagay oo diidan yahay magaalada Baydhabo مثلا soo qaada waa jamhuuriyadda dhammaa sida ah 280,000 oo qof waaye dadweynaha degan ee guryaha ku leh ee la yaqaan magaalada Baydhabo 300,000 wax yaraa ka dhima 750,000 oo barakacayaal ahaa jooga qabiil isdirar kama soo cararin cadow soo duulo dibadda ka yimid kama soo cararin abaar waa ku dhacday waa run laakiin meeshooda wax loogu geey karay deegaanadooda wax loogu geey karay qaarkood meelihii ay joogeen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka da'o waa beeran waayeen beerihii beerta saad u beertid baasa keenaa la yiri ilaahan idinku dhaariyey ee dadkaasi intaan iska soo galnaa waa isku midab egnahay waa Soomaaliyan ku wada hadalnaa miya intaan iska soo galnaa meelaan iska soo galna malaha ninka mabda'aas qaba meelaan iska soo galna malaha qofkan koronu qaba hadii la soo kama carareyn ayaanti dhaweyto ya koronu qaba hadii la hebela koronu qaba hadii la soo kama carareyn nimankaas waa ka carareyna u dhawaanayno wax ku darsamayno meeshay joogaan tagin bayno maxkamadooda iyo businesstooda iyo wacdikooda iyo shirkooda iyo maxuu ah meel ay joogaan tagin bayno yaan la tagin yaan loo dhawaanin meel ay joogaan yaa tagin geesiyaasha kuweena ah ee dagaalamaya ee duruufo adag ku dagaalamaya bal nin fiire aan mishaar qaadanin hadda awal askarteena mishaarku waa ku yar yahay iyo dhaqaaluhu waa ku yar yahay iyo sidaanaan dhihi jirin maxaa soo baxa hadda kumanaan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo mishaar qaadan annaan rabin nin walba gurigiisa saaka inta muxuu ahay cambuuladii holi kar inta ka soo cuno qorigiisa soo qaatay dadnimada meeshaasay jirtaa midaa dhuumanaya shabaab beeso ula dhuumanaya beeso u wado ha telefonaal isoo dir aniga waa cabsa caqiidadiisa wax u dhimay laana maalinta uu dhimo lahay inuu ka soo hormarayo aaminsan yahay maalintii ilaahay u qoray oo uu dhimo lahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalinta dhimo lahayd umba dhimanay ama shabaab beeso ula garguuro ula dhuumo ama qora qaada shabaab la dir maalintaadii aad dhimanayle kama soo horm inaad qora qaadato daraadeed dhimashadaadu uma soo hormarayso inaad lacag laaluusho xaaraan ah shabaab oo dad lagu dilaayo dad lagu qarxinaayo oo dad lagu nehbaayo inaad shabaab ula garguuratood ula dhuumatana ku badbaadi maysid caqligu ha noo soo noqdo xisku ha noo soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaadaad dhimanay sharaf iyo karaamo ku dhimo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo abaal allah ka waraabiyo ummadaanay abaal u galeen oo naftooda inay u bixiyaan ay go'aan ayagu ay gaareen lama khasbin laguma riixin laguma waxayn ayaga go'aan gaaray fiiriyay ummadaan inay culays ka saaray dib ka saaray ka dul qaadaan boqolaal kumanaan waaye kuwa naga dhinto naga baxmaan kuwa nool wali soo taagan oo taagan مثلا usoo qaadanay muxuu ahay generaal muxuu ahay farxaan markaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegaynaa مثلا usoo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan
ama ku dhintay qaarkoodna weli u taagan yahay oo maxaan ku rahaa kor u hayo muxuu ahaay kelmadda saxda ah ee muxuu ahaa islaamnimada waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cadow waa hal laba ma aha laba cadow ma lihin hal maanta Soomaaliyada maanta berri wixii Ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha Allah maanta Soomaaliyada jirta cadow waa hal waa shabaabka qaraxyada oo hotel Xayaat dadka ku laay oo 14 Oktoobar maxaan ku raadayay dadka maxaan ku ku laay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynayo oo qarxinaya ki qarxiye bas ma aha qaraxa shabaab ma soo candhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyay dad uu ijaaray meel uu ka keenay lacaga lagu bixiyay dhamaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneer oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha على ديرها مالها بقبقلايا شيطان كا إيو هبل ديريها كسي مجرم ككلا كسي وين بنجي باس ومجرته باس ده النوايا marka kan qarxa isku xirxiraya dambiila baasidii lagu soo gaday qarxaas la isku xirxiray ki bixiye dambiila ma aha waayo qofka loo sheegayo oo aqligiisa oo aqbali karo dambiila tahay adaa ka weyn laana adiga lacag hadaad dhiibilahayn ninkan qarxu isku xiray ma heli lahayn adiga waa mid ka weyn kan lacagta dhiibayo waa adiga dambiilaha koobaad waa adiga laana ninkan wuxuu qarxiye ma heli lahayn hadaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahay yaa haayo abu hebel ma haayaan yaan lagu kadsoomintaas waa caqiida yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishaligtood qaar iska tuur noqotaa meesha kuma jirto inaad xeeladayso is ilaaliso naftaada sidii Allah saad ku badbaadi karto aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi kartid cudurdaar uma gumaystaas sharciyan meel aad uga banaanta mara naftaydan badbaadinay marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku iraadaayay aan naftaydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo hayst cudurdaarna uma laha mandiq meel ay ku salaysan tahay xigmad ay saaran tahay male diin ma aha عقل معه وحي تهاي لما يقان أنا شبابا إدلاي سئون إدلي لكن قرحة أو زابطتك كل الله بسيدي سيان ديبه dadka Soomaaliyeed oo meel ka soo joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunyo saas lagu ma raadiyo aakhirana iska dhaafbo maanta waa ku celcelinaa Soomaaliyada maanta joogta ee Ilaahay dadkii noolaay oo zamanka jooga annaga inteenani intana la mida oo Ilaahay naga dhigay hal cadaway leedahay waa hal cadawgaas shabaabaa la yiraa macnaheeda kan qarax samaynaya kelimaa shabaab kalkaal baasabixi guri ka ijaar baabuur ka ijaar usoo iibi baabuura ka sii iibso baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel walaalka Soomaaliyeed oo muslimka ah oo shabaab kalkaal ha noqonin cadow waa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukumo maxay ahayd nahnu nahkum bidhawaahir wallahu yahkumu bisarair waxa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadashay adaa yaqaano laakiin anaga aan la hadashaa u jeednaa shabaab kale la hadlale Soomaaliyeey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distance-ga ha laga fogaado 2 kilomitir ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tagin meeshuu jooga ha joogsanin naftaada ba khatar ku jirtaba meesha uu jooga hadaa joogto in lagu duqeeyo ba khatar ugu jirtaaba iyo in operation laga soo kor degto oo commandoska ay ka soo kor dhacaan meesha lagu waxaya ku jiro waa u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed mar kale waa ka waaninaynaa waa uga aqal celinaynaa waana uga digaynaa cudurdaar ma lihid
madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto saxaro qor dheeraa la isaga tira haliyir qofba shabaab tuumadiis ay soo maxkamadiisu ma wallahi ninka waa loo yar waa ku qasbanay maxkamadiisu tagay ahlan sahlan shabaab waa meesha waa ka baxo cudur daar ma lahan anaan la igu imaan karin saraakiisha amnigan loogu tegi karin ninkii ugu tagay sagaraashiinka amaroon waa u sheegay haddana waa ku celinaynaa ninkii nin shabaab daba socdaa waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yiraahdaa walax kala ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xiran ninka daba socdo waa la dulmina maahan oo la dulmima meeqa shabaabnimo inta lagu eeday maxkamadaha la geey waxba inta lagu waa la soo daayay socda la yiri oo beledkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadaas waxay xukunta say u xukuntaan u aqbalayna juhdi iyo dadaal ayaga laga rabaa iyo inta baarista iyo muxuu ahaa hawsha ka shaqeysa laakiin nidaamka sharciga waa marayna noogama adkaan karaan shabaab inaanu nidaam sharci maraynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushmo iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid shabaab inaa ag joogto daraaddeed by the time waktiga aad shabaab u tagtay ood la joogtid waxaad beer daraysay xuquuqdaadii ogow waa nahandadaa iyo waa laydilaa iyo dowladda ima ilaalin karta maahanoo haa dalka dhamay kula qabo balaayo laysla qaba balaayo ma aha waa lagula wada qabaa annaga dhammaa tahdiidsan caqiidadeenna aan ilaalino maalintaad dhima laheedaad dhimaneey walaalka soomaaliyeedu saacadna lagugu dari maa saacadna lagaa dibdhigi maa saacadna lagu soo hormari maa saacadna lagaa dibdhigi maa bas nimanku maxay nagu haystaan dhiiranaantaas yarta aan laanahay wax yar inaan dhiirano aan laanahay aan dhiirano ilaahay idankiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idankiis layskuma hayo yay nagu dheeraanin le waktigii oo ka adkaanayo nagu dheeraanin aan soo gaabino nimankaas shabaabaa la yiraa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiis kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda bas annagaa u baahan leh inaan fahamno aamino ku qanacno maalmahooda inay tirsan yihiin annaan dadejino oon hor u dhammaystirno waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yiri waa nimankaas isma hurayne yay nagu daba dheeraanin ciyaw aan warkooda iska dhammayno aad iyo aada u mahadsantihiin mar kale iyo mar kale ilaahay dembigooda ha dhaafo su-aasha muxuu ahay allah u fududeey qabriga allah u waasiciyo iyaga iyo inta qadiyadda ay u dhinteen u dhimatoo dhanba ilaahay hayoore ahladii iyo qaraabadii ummadda soomaaliyeedna samri iimaan allah naga wada siiyo aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu